Samaynta saaxiib cusub ama xiriir cusub. Soo jiidashada qof cusub waa farshaxan u baahan xigmad, edeb iyo kalsooni. Qof cusub markaad rabto inaad soo jiidato, ha ahaado qof aad jeceshahay ama qof aad rabto inaad saaxiib la noqoto, waxaa muhiim ah in aad ku wajahdo aragti fiican daqiiqadaha ugu horeeya. Waxaan ku bari doonaa oo talooyin muhiim ah oo kaa caawinaya sida loo soo jiito qof kugu cusub. Nambar 1. Ku bilow muuqaal dabacsan iyo dhoola caddayn. Dhoola caddayntu smile waa hubka ugu fudud ee soo jiidashada. Muuqaalkaaga ha ahaado nadiif, hagaagsan oo muujinaya inaad ixtiraamayso naftaada iyo dadka kale. 2. U hadal si degan oo ixtiraam leh. Ha degdegin ama ha noqon qof hadalkiisu kacsan yahay. Isticmaal erayo jilicsan sida waan ku faraxsannahay la kulankaaga ama waxqad iiga dhigan tahay qof xiiso leh. 3. U dhegayso si dhab ah. Qof walba wuxuu jecel yahay in la dhegaysto. Markuu qofku kula hadlayo, si taxadar leh u dhegayso oo u muuji inaad xiisaynayso waxa uu leeyahay. Su'aalo fudud weydii si aad muujiso inaad danaynayso. 4. Noqo qof daacad ah oo aan isbeddelin. Ha isku dayin inaad noqoto qof kale si aad u soo jiidato qofka. Qofku wuu ku dareemayaa markaad iska dhigayso wax aadan ahayn. Daacadnimo ayaa kaa dhigta qof lagu kalsoonaan karo. 5. Xigmad iyo kaftan fudud isticmaal. Kaftanka wanaagsan wuxuu jebinayaa cabsida bilowga. Laakiin ka fogow kaftan dhaawici kara qofka ama xad gudub ah. 6. U fiirso si kalgacal leh. Indhuhu waa furaha xiriirka. Marka aad qof cusub la hadlayso, u eeg si xushmad leh oo deggan, ha ahaanin mid xad dhaaf ah. 7. Muuji dhinacaaga wanaagsan. Sheeg wax yar oo xiiso leh oo kaa dhigo mid la xusuusto, sida hiwaayad gaar ah ama aragti nolosha ah oo dhiirigelin leh. 8. Ha degdegin. Soo jiidasho dhabta ah waxay ku timaadaa si tartiib ah. Ha isku dayin inaad isla markiiba hesho kalsooni buuxda, u oggolow wakhtigu inuu sameeyo saamayn.